nagaadka xildhibaanada baarlamanka hay'adaha caalamiga ururada dawliga ah ururada bulshada qorayaasha abwaanada ganacsatada dhakhaatiirta iyo dhammaan bulshooyinka ka soo qayb galay caawa barnaamijkan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dalada nagaad waxa sharaf u ah inay caawa idinku soo marti qaado bandhiga buugga Women of First oo ay qortay marwo adna aadan ismaaciil dhakhtar dhammaantiin ku soo dhawaada cawayskan lagu maamuusayo buugga qiimaha badan waxa dalada nagaad ay u mahadnaqaysaa shirkadda Som Cable oo internetka inaga caawisay iyo sidoo kale shirkadda True Cable oo baahinta inaga caawisay waxa kale u mahadnaqaysaa London HD oo duubista caaway naga caawisay sidoo kale waxay u mahadnaqaysaa dhammaan dadkii taageeray ee ka qayb qaatay qabsoomidda bandhigan ayna caawa iskugu nimid barnaamijka ayaynu si toos ah u bilaaban doonaa waxaynu ku furan doonaa aayadaha quraanka kariimka oo inoo akhriyi doono Sheekh Yaxye Cabdikariim Cali fadlan soo dhaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى صدق الله العظيم وصدق رسول كريم ilaahay nagu abaaliyo aayadaha quraanka kariimka waxa kale inagu soo biirtay wasiir ku xigeenka xanaanada xoolaha Yurub Abiib oo aan soo dhaweynaynaa iyadana waxaan idin ogeysiinayaa dhammaan dadka doonaya inay caawa social media ka qayb qaataan inay isticmaalaan hashtag buugga iyo the Iron Lady iyo nagaad bad kala socon kartaan wixii faahfaahinana xafladda si toos ah ayaynu furan doonaa kelmadda soo dhaweynta waxaan siinayaa gudoomiye ku xigeenka dalada nagaad waxaan ku soo dhaweynayaa marwo Khadraa Cumar Cismaan Khadraa Cumar Xasan fadlan soo dhaw بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد waxaan idinku salaamayaa dhammaantiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan si gaara u salaamayaa dhammaan wasiirada halkan fadhiya xildhibaanada cid kasta oo title ku fadhida halkan anigoo aan idin kala guraynin waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxa kale oo salaamayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay xafladan runtii qiimaheeda aan halkan lagu soo koobi karaynin caawa oo aan laga sheekayn karayn qiimaha iyo dareenka iyo wanaagga ay xambaarsan tahay ayaan idinku salaamayaa waxaan salaamayaa saxaafadda waxaan salaamayaa dhalinyarada quruxda badan ee ka soo qayb gashay dhammaantiin anigoo ku hadlaya afka dalada haweenweynaha nagaad ee soo qaban qaabisay
xafladdan aadka u quruxda badan leh waxaan idin leeyahay dhammaantiin soo dhowaada runtii haddaan dib u yaro midhicsado amba aan is yaro dul taago xafladdani waxay maanta daaran tahay waxaynu caawa halkan ku gardaadinaynaa ugu wanqalaynaa ugu dabaaldegaynaa buugga ay qortay Iron Lady of Somaliland runtii adna aadan waxaan leeyahay caawa oo dhan ilaa intuu waagu ka baryayo haddaynu isnidhaahno taariikhda adna aadan ka sheekeeya waxaan biliif garaysanahay oon rumaysanahay inaynaan soo koobi karahayn way ka weyn tahay aadni waxaan odhan karaa wax buug iyo 2 iyo 3 toona taariikhdeeda lagaga sheekeeyo waxaan leeyahay runtii waxa ay ka soo qayb qaadatay markaynu ka tagno taariikhdeedii hore amba waxbarashadeedii oo aanan runtii anugu iminka ku laabanayn oo buuggeedaasi wax badan ka taabtay amba Soomaaliya iyo dadkii hore markaan ka soo gundagado ee aan Somaliland isu soo dul taago 30 sannadood ay Somaliland dhisnayd adni maxay Somaliland ku soo kordhisay adni Somaliland waxay ku soo kordhisay horumarinta caafimaadka gaar ahaan dhakhtarka weyn ee u dhistay haweenweynaha amba hablaha reer Somaliland si caafimaadkooda iyo tarankooda runtii loogu ilaaliyo adni waxay ka soo qayb qaadatay dhisidda iyo horumarinta Somaliland runtii waxay ka soo qabatay xilal kala duwan Somaliland oo ay ahayd wasiirkii arrimaha dibadda iyadoo kabaha u gashatay inay Somaliland itiraafkeeda soo dhaweyso ilaa imikana ay wado marka waxaan leeyahay adna waxaan leeyahay runtii waa role model aynu ku dayan karno waa ilaysi noo baxaya oo aynu daba socon karno waa faynuus aynu eegan karno oo inan kasta oo han leh hadday tahay hanka horumarinta hadday tahay hanka maxay haytay siyaasadda hadday tahay hanka nafteeda ay dhisayso runtii waxaan odhan karaa waa role model Somaliland women oo aynu dabageli karno dad badan ayaa isweydiinaya amba isleh hablo badan oo halkan fadhiya iyo qaar kale oo maqanba waxay leeyihiin talo goormaan aadnoo kala noqon aniga ka mid ah waan higsanayaa haddii wadku idaayo inaan maro dariiqa ay aadni soo martay haddii wadku idaayo waxaan higsanayaa waana ii muuqataa runtii waxa ku dhiirin gelinaya markaad aragto taariikhda dib u milicsato haweenka Somaliland taariikhda dheer ay soo mareen yaa ka soo dhaxbaxay baad leedahay runtii way badan yihiin hablaha ka soo dhaxbaxay laakiin marnaba ma gaadhayno umana dhadhawin halkay aadni ka soo qaaday iyo halkay maanta marayso laakiin we try our best waxaanu isku dayaynaa inaanu aadna daba cararno oonu daba qabsano toobkeeda sidaanu u daba cararaynana waxaan u malaynaynaa inaan ku fayna inaanu gaari doono waxaa kaloo aad u sii dhiiri gelinayaa runtii hablaha yaryar ee jaamiciinta ah ee runtii caawa halkan fadhiya amba kaba maqan inay ku fikiraan inay noqdaan dad caana oo dunida wax ku soo kordhiya hadday tahay Somaliland iyo hadday tahay lafahoodaba waxaan leeyahay runtii oon si gaar ah u salaamaya bahweynta haweenka waxaan si gaar ah u salaamaya hablaha wasiirada ah oon uga yara eexanaya ragga wasiirada maadaama ay habla yihiin caawa gabadhna loo dabaaldegay igama aha inaan ragga wasiirada diidaya laakiin waanu idinka yarnahayo sidaa darteed baan salaan qaaliya labada hablood halkaas soo fadhiya hindi way maqantahay waa Shukri iyo Yurub Abiib iyo hindoon iyadana malaha yani caawa fadhin intaba waxaan leeyahay waa inaynu kabaha gashanaa waa inaynu wax badan qabanaa waa inaynu ka muuqanaa golaha dhinacyada faraha badan
ee Somaliland ee talada dalka runtii waa inaynu aad uga dhex muuqannaa waxaan soo dhaweynayaa dhammaan hadalka ma badinayo furitaan bay iga ahayd laakiin markaan dumarka iyo hawlahooda arko ayaan yara mirqaaman yara taraara runtii waxaan idin leeyahay dhammaantiin soo dhawaada buugaagta halkan taallo xunman caawa inaan xabadikooleyno la isku layne oo la wada iibsan doono sababta oo adnaa qortay adna waxaan leeyahay adna iyo hambalyo waan kuu ducaynaynaa halkaa aad maanta gaadhay inta naftu mawdku kaa maqan yahay waxaan u malaynayaa inay halganka halkaa kasii wadi doonto oo ay ku jirto ictiraafka Somaliland oo ay ku jirto horumarinta haweenka iyo dhalinyarada aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idin leeyahay dhammaantiin soo dhawaada aad bay u mahadsan tahay Marwo Khadra Cumar Xasan oo ah gudoomiye ku-xigeenka dalladda Nagaad runtii caawa bandhigu maaha bandhig buug oo kaliya waa habeenaynu dabaaldegayno guulaha taariikhiga ee ay gaadhay Marwo Adna Aadan oo dhammaanteen tusaale inoo ah gaar ahaan hablaha sidaa darteed caawa stage-ka dadkii soo istaagaya dumar may u badnaan doonaan taana niyadda ku haya waxaan u yeedhayaa aad baa u mahadsantiin xataa dumarku caawa kasoo qaybgalayaashu xataa caawa dumar bay u badan yihiin imika waxaan u yeedhayaa gabadha keli ah ee ku jirta baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland Marwo Baar Saciid baar way noo soo socotaa baan filayaa waxaan ku xigsiinayaa qofkii ku xigay un baan ka soo hormarinayaa markay noo timaado insha Allah inoo soo kici doontaa waxaan ku xigsiinayaa qof ku hadli doona afka dumarka wasiirada ah ee golaha jamhuuriyadda Somaliland ee hadda xilka haya waxaan u yeedhayaa Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare wasiirka golaha deegaanka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta halkan isugu timi caawa ee xafladan qiimaha leh ka soo qayb gashay ee dalladda Nagaad ay caawa u dhigayso Marwo Adna Aadan Ismaaciil number 1 ka Somaliland caawa xafladii loo dhigayay buugeeda ee loogu walqanayay ayaan runtii ugu mahad celinayaa dalladda Nagaadna in anigu anigoo yar baan bartay anigoo yar oonu yaryarnahay baan Adna Aadan bartay Adna Aadan aniga macallimad bay ahayd walaashay Faadma Xaajina macallimad bay u ahayd markii Adna aanu naloo geeyay waan garanayaa Adna kelmadaheedii ugu horreeyay waxay ahaayeen Adna kelmadaheedii ugu horreeyay waxay ahaayeen sabir yeesha markaanu neersinka dhiganaynay sabir yeesha oo shaqada qabanaysaan sabir u yeesha horta sabirkii halkaasaanu ku qaadanay gruubka yagii waxaanu 5 baanu ahaynoo 5tayadu kilaaskii 27 ahaa number 1 ilaa 5 annagaa galnay number 1 ilaa 5 5tayadii baa isku xignay 27kii hablood ee halka Adna loogu geeyay waxa noogu xigtay Adni shaqada qabanaysaan daacad u ahaada waxaad u shaqaynaysaan dad xanuunsanaya ayaa u shaqaynaysaan waxa u shaqaynaysaan dumar umulaya dumar marka uu xanuun hayaad u shaqaynaysaan daacad u ahaada wajigiinana ha ka muuqato
ina aad farxad ku soo dhaweynaysaan qofka waa nursing ethics waan garanayaa dariska ama klaaska aanu qaadan jiray ahaa nursing ethics adna markay dhigayso si janawana oo runtii wadnaha ku taabanaya ayay noola hadli jirtay adna waxay igu xigtay markii la kala tegay waxay igu xigtay inaan ugu tagay Djibouti markaan ka dhaleyd bilaabayay waan soo maray waxa kelmad baan ka hayaa waxay tiri hareerahaaga ha eegin hortaada unag be focus hortaada eeg haddaad hareerahaaga eegto bay tiri daldaloolooyin badan baa kuu muuqanaya ha eegina halkaa hore horta eeg markii ay Somaliland ku soo noqotay ay timi way noo sheegtay waxaan furayaa bay tiri isbitaal dadkii ugu horeeyay ee shirka la galay baanu ahayn waxay siday oo markaa maxamed xaashi iyo adniya ay sameeyeen waxay sameeyeen structure-ka ama dhismaha sidii loo sameynayay intaan sidaa cabaar u eegay ayaan ku marwa ma kana doonaysaa inaad samayso markaasay tiri haa markaasaan dee lacagtii waad inoo haysaa intay qosasho bay tidhi mushaharadaydii baan hayaa UN lacag kale meel kuma ogi lacag kale meelaan ku ogi laakiin kaa waynu dhisaynaa Somaliland baana dhisaysa oo ila dhisaysa bay Somaliland baa ila dhisaysa waxaan garanayaa isagoo qabyo ah oo December tahay oo dhaxan tahay oo daaqada lahayn oo waxba lahayn ayaan halka hoose shir ku galnay waxay nagu tiri hadni waxba ma lehe kininkaynu qaadan bay tiri laba duriga hadii duro inagu dhacee in shirkii waxaan u fadhinaa 2 saacadood waxaadna ma soo koobi karo halwaati khadrish ka warantay kama soo koobi karo adna ma soo koobi karo shaqaday iyadu ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Somaliland baa u qabatay laakiin mid baanu adna kaga dayan markaanu nursing ku jiray sida u socotaan u socon jiray waanu isku day jiray bal aadni sida u socoto inaanu u soconno gooray naga tagtay iyaduna dhaaftay maanu ogaan jirin markay dib noo soo eegtana waxaan oran jiray adni waxay noo soo eegaysaa waa gaabinaysaan daba cararo insan u daba ordaynaa aanu ku daba xiiqna laakiin mid baanu ka qaadan aanu maanta aanu ku shaqaynaa oo aanu maanta ummadda Somaliland ugu shaqaynayna waa daacadahaada be focused waxa doonaysaan qabataan haydiin muuqdo haydiin cadaado anigu waxaan ka mid ahay dadka waqti kasta la tashada haddii aanan adna mar arag ama laba arag yani waxba iga maqan wax weyn baa iga maqan adna last year hadda ay November waxaanu isu raacnay Ingiriiska aanu isu raacnay waxaanu la kulmaynay House of Lordska odayaal baanu la kulmaynay House of Lordska odayaashii aanu la kulmaynay gaarigii baa wuxuu taxigii aanu saarayn ayaa waqtigii waan daanay cidhiidhi baa ahayd dariiquna waan garanayaa waxaanu ka degnaynu yaacno si time-ka inuu soo qabanno saasaan u eegay ilaahay baan ku dhaartay intayadii raacday adna waanu soo qaban weynay iyadoo imika daadaas waxaanu ku tagnay on time baanu ku tagnay waqtigii markay waraaqda ay dhiibaysay akhriyeysay iyada waraaqda dhiibtay waa akhriyeysay madaxweyne ku-xigeenka dhiibayay laakiin akhriska way lahayd iyo wixii su'aalaha laga jawaabayayba waxa weeyaan siday laabta iyo qalbiga uga soo goyso Somaliland markay ka waramayso markay u sheegayso ummadda kale ka dhaadhicinayso annagoo dhan baa aamusnayn qof juuq yiri maanu lahayn waxaan ku soo gabagabaynayaa waa shamac noo baxay waa iftiin iyo siraadaan u eegano ilaahay cimriga ha u daayo oo caafimaadkana ha ugu daro ilaahay waxaan ka rajaynayaa haweenka Somaliland ee yar khadraan higsanaya halkii ay tiriye hablaha soo maanta soo kacaya jaamacadaha ku jira iyo kuwa secondaryada ku jira iyo kuwa soo jafaaya ee soo socda inaynu siraadka adni inoo dhigtay iyo taariikhda inoo dhigtay inuu wada raacno annagu waxaan leeyahay ilaahay adna maalintu Somaliland u dhaliyay jawharad buu u dhaliyay jawharad ayuu u dhaliyay aad baan idin salaamaya aad iyo aad baan idin salaamaya
aad bay u mahadsan tahay marwo shukri xaaji ismaaciil maadaama caawa aynu joogno bandhig buug waxa aan ereyga qoraaga siin doonaa qoraageena caanka boobe yuusuf tacaale بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رالله يا هانسان هل كان كدور بداي هبينك عبد القيس هل كان كهذه ويبير جدي هل كاسي هدنا أدنى القرآن سجال لي بنسيد يا كله نوان سلين هكا أنا قلدي بقصة آخر ما هي لكن تي مركي اللي يقول إيري بعد أيان شريف بالله هذا واحد يسكت إذا أدنى نفسه لينا نأخذ أدنى برشة يد وقفهان كعنقاد هذا اللي يسبرشوا صد سنوات وي بش أبريل لا تكيد سدحية لا تكيد كل به أي صدق كيس سنوات بوحان شهرتهم بان شغني مقالة شبوتي كوني سقال بقول يكوب يسقاشن كي لو بلاد أيوم بان نرشي دولسار كهذا يا سلامته كسو كي وابن كوشاشون يشهرتون لحجوجي سمالتاس قبل سهر قادي اللي راي والسعودين سهرانو إن أدنى إلى مالنتا ما انتهى أيانا قارنا انت أنا وحنو يسقوي من ينون دنقود يدلكن وايس يسدي الله مارين لها لباتوين كوريا لا أدنى مركن قفن ما وقلنا قلنا وقف دق بدن أو دربان مركان دق لا هاي نفضيت معها لكن توا قرمد وحا أي دقتو أي دربان تهنا ودنقود وحنا وقوم بدن دريالك هو يدي المها ونوك قويسك إدني وحوي دتك هرمود كوا إني وقتك قيميان إدنا سنة كوا ولا بيتهم بلاد بيشونا وأوصدن كوبي صدن سديد يلاهتن تضبات كوي ترستا مرر كوي ترستا وحي كل وقتها إني برعد كلولاتو البرقس جام سكنت يدو يا رجل كفاية سنة يدو هيسا دردارنكي حاج عبد الكريم عبد ورابن حريستي شنو إلى هاي كورابيو إدني الدولة كم فقاتو دردارن يردول كوي كدو بيسنا كم ديسو دولة دين لقى فقادانا مو ناكسنا هدي أنا صار كودين إدنا آدم إسماعيل ما هدتك عرض بدن وهدتك فرحة بدن مرمر بعروتا على ذي المسير النور كما قالوا سيدنا ماله لكن تيو حوجها عندها وجهه يرسو يقولت يرقلو عسل لبيه إنجليزنا لبيه إنجليزنا يراسو أنت ما دافته إدني واحد حرقة ديت تسأل النول أيه يتهاي يدون واحد معقدة أما واحد إيشو أي كديدو أما إنه كنا العقد بدن باكو بحذي عن حدنين أيه تسألوا تهاي حرقة صعدك دربنانتا يسوع شيء كذا أدنى أنت عشان كوها بلينيا وحن كجب حيا هذا الكا مالين بين عشلات مقالة يدعو مرتقى داي قبل ليلة سعد عبد تورده وجامعة هرجيسة كشقيسة
oo hal abuura ayay ka codsatay inay u duubto maansooyinkeedii markay dhowr meeris marisaba edni intay 60kii iyo dib ugu noqoto ayaa waxay tidhaahdaa taceesh 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 anigu caawa waxaan leeyahay adna taceesh oo ahayd noolow beriga af Soomaaligu muu fiicnayn waxaan hadalka ku soo ururinayaa saasaynu ugu ducaynaynaa waxaan filayaa buuggeeda labaadna inuu noqdo wixii ugu badnaa ee ay nolosheeda danaysay ee ay daryeeshay waa maxay ama dhibaatada haysata hooyada iyo ilmaha iyo sidii loo gudbi lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay qoraa boobo yuusuf ducaale barnaamijka ayaynu kusii socon doonaa saddex mas-uuliyiin baan u yeedhi doonaa ka hor intaynaan u gudbin dhowr qof oo soo akhriyey buugga oo wax ka idhaahda saddexda mas-uuliyiin waxaan ka codsanayaa inay wakhtiga inoo soo koobaan waxaan ugu horreysiinayaa cabdirashiid faarax axmed oo ah mas-uul ka socda shirkadda daabshil بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دمان قلها وسير هذا مرت شرفته أجنبك يدمان با مرتدا عاو حفلتنا سوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنهانتي حفلتنا يقي مبادن ما نعرق هذا نهاية دابشيل جروب أدنى أذن دلادة النقاد يسوع قبل قابل سي حفلة آدي آد من رهانتي وقفر حسنا هنا نكسو غيب قلله آدني وحويان ذلك فركوتيرسكا إلهي سبحانه وتعالى ودتك كدلي بشرك وكدلي بكمته أما أنت هذا ماشي والله قشة لكن قفك بن آدم كا مسكحة إلهي ووكل الدوي قفكو قابك ومسكحة إلهي أسي يسيبه وقود بيا لكن أدني إلهي وحو كهنوني أوسيي هبنا أوسيي قابك مسكحة إلهي سيي وجود بسو قابك مسكحة أيو استعماشه سيدا بدتك بنادم خايو لا دقنته فورمالا waxa ay doonayso inay ka hadasho iyo wadada ay ka saarso halkan baa laga sheegay iyadoo aan lacag hayn dhakhtarka inta laga jeexday inay hadee badi kale yahay ilaa iyo markii ay soo bilowday nursing ama waxbarashadeeda waanadeedu ilaa ay hadda aan isbedelin qofka bini aadamka maskaxdiisa isbedbedel baa ku dhaca laakiin sida adna laga sheegay ama aan ku aragnay waa qof maskaxdeedu aan isbedelin ilaa hadda ay haysato halkii ugu sareysay ama levelkii ugu sareeyay ilaahay ku manaystay adna runtii waa hablaha farakutiriska ama ragaba waxa oran karaa way ka qiimo sareysaa maskaxdeedu waxyaabaha ay abuurto hal abuur bay leedahay hal abuurka way ka midho dhalisaa waxaan si xasuustaa berigii ay ahayd wasiirka arrimaha dibadda waagii ay wasiirka arrimaha dibadda ahayd ayaa meel Afrika ah ayaa la isugu tagay sibaa Soomaaliland uga qayb gashay adni markaa waxayd wasiirka arrimaha dibadda khudbad baa lagu soo dhigay waxaan daawanaynay Afrika oo dhan wixii madaxweyne fadhiyay kaga oohisay ayaan garanaya uu soo kacay milla sanaawiyo uu wax saaray baan garanaya marka adni waxa weeyaan qof ilaahay taanad u dhaliyay maskax u dhaliyay ilaahay hadaayo waxa qura ee ay dadku ku xasuustaan reer Soomaaliland waxa kamid ah isbitaalkeedaasi mar walba waa buuxa markasta uu buuxana dadka waxa la charge gareeyo anigu waa oga waxba lama charge gareeyo waa blash intaasaba ugu filan ba dadka tusaale kaliya waxaan hadalkayga ku soo koobayaa buugani waa buug qiimo badan waa buug run ahaantii anigu intaan imika ka eegay waa laba buug oo yar kala duwan xagga jaldiga un bay kala duwan yihiin laakiin qoraaga waa isku mid waa buug dhaxalgala weeye annagu dahabshiil group ahaan labada buug waxaanu ka qaadanaynaa min 100 iyo 100 baanu qaadanaynaa haddii alla idmo oo aanu ku
ku deeqaynaa dhakhtarka ama dee meeshii ayaanu ku deeqaynaa insha allahu tacaala aad iyo aad baa u salaaman tihiin hambalyo baan leeyahay daadna ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay cimriga ha ku raajiyo kaama maaranno mar kasta tusaalaha iyo aqoontaada laga maarmo intaas baan soo koobaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay mudan cabdirashiid faarax waxaan haddana u yeedhayaa mudane cabdiwahaab maxamed maax maxamuud oo ah mas-uul ka tirsan shirkadda isgaadhsiinta ee telesom بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبناها قلها وسيرة مروادنا هذا إسماعيل مرتي شرف تا رقيها وين بيسو قشرتا كسوقي بشيء حفلدا وحندكو سلام يا مركا كواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلباد شرف كاربي عاوئيتا هاي إنا ندين كلا سوقي بقالو xafladdan lagu dahafurayo buugga ay qortay eedo marwe aadan ismaaciil ee loogu magac daray haweeney ka mid ah haweenka safka hore markaynu af soomaali ku sheegno dabcan adna inay haweenka dunida safka hore kaga jirto waa arrin aynaan isu khilaafsanayn waa arrin ay dunidu ka markhaati kacday waa arrin markaad iminka buugga gudaha u gasho eed eegto adna iyo xidhiidhka ay dunida la leedahay iyo qiimahay dunida ka joogto intuba waxay ku tusayaan adna halkay taagan tahay dabcan waa laga hadlay adna iyo qofkay tahay iyo qiimaheeda markhaati baynu ka nahay oo waxaa laga yaabaa inteenna halkan fadhida 90% in ubadkooda iyo haweenkooda lagu daryeelay isbitaalka ay adna amaamuday ee ka amaamuday Hargeysa oo Soomaaliland oo dhan u noqday meel ay ku soo hirtaan hooyada iyo dhallaankuba dabcan waxa la daryeelo oo la qiimeeyo islaamku wuxuu qiimaha ugu badan siiyay haweenka islaamku qiimaha haweenka siiyay diin kale oo siisay waxaan u maleynayaa inayna jirin dasaatiirta iyo xeerarka iyo qawaaniinta dunida ka jiraana marnaba qiimaha islaamku haweenka siiyay muusinin rasuulka sallallahu alayhi wasallam baa maalin inuu yimid oo markaas uu ku yiri yaa igu xaq badan cidda igu xaq badan xuquuqigu waayo markaas uu yiri hooyada markaas uu ku celiyo wuxuu yaa ku xiga markaas uu yiri hooyada markaas uu yiri hadana yaa ku xiga rasuulallah markaas uu yiri hooyada markaas uu yiri yaa ku xiga markaas uu yiri aabaha 75 cidda la siiyay ixtiraamka iyo karaamada iyo weyneynta iyo qiimaha waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu siiyo haweenka isawsu bin nisaa khayra rasuulku sallallahu alayhi wasallam dardaaranadii ugu badnaa inoo tagay waxa kamid ahaa war haweenka khayrka ku ogaada adna waxay awoodda saartay oo ay waqtigeedii gelisay oo ay u hibaysay nolosheedii inay daryeesho hooyooyinkeen iyo ubadkeenna siday u noqon lahaayeen qaar caafimaad qaba oo nolol wanaagsan ku noolaada adna haddaan caawa halkan ka tiriyo waxay qabatay iyo shakhsiyadeeda waxaan u maleynayaa caawa dhan ka daalimayno cabdiraxmaan yuusuf ducaala ka hadlay boobe oo si tafaftiran shakhsiyadeeda iyo qiimaheeda iyo qofkay tahayba ka hadlay haddaan caawa dhan ammaanteeda furan idhaahno ma dhammayn karno haweenkuna sidoodaba waxaa laga yaabaa inay hormoodu yihiin nolosha qaybahoodoo kala duwan waxaad og tihiin culimmadii islaamka ciddii ugu qiimo badnayd waxay dhahay Aisha haweeneydii rasuulka sallallahu alayhi wasallam Aisha waxa la yiraahdaa xadiista inta ugu badan rasuulka laga soo wariyay ee maanta islaamku ku dhisan yahay ee nolosha guriga oo dhan ku dhisan tahay waxa soo warisay Aisha waxay ahayd mufti la weydiiyo diinta iyo waxa ku saabsan iyo hawlaha guriga oo dhan Aisha waxay mid kamid ah culimadii ugu waaweyneed marka adna haday maanta inoo noqotay mid kamid ah culimadeena ugu waaweyn ee caafimaadkeena ka shaqeeya daryeelka hooyadeena iyo dhallaankeena ka shaqeeya ee ka shaqeeya horumarkeena iyo wadankeena iyo sidii loo dhiirigelin lahaa habluhu inay hore u socdaan habluhu ma aha inay ragga sugaan habluhu ma aha inay markasta eegaan oo raggiiba halkan mar yiraahdaan ha ogaadaan inay iyagu ragga ka horeeyaan inay ka qiimo badan yihiin inay yihiin hooyooyinkii raggan keenay
ragguna waxay u kala qiimo badan yihiin siday u kala hawo wanaagsan yihiin waxaa la yidhaha ninka kaa gabadh wanaagsan weligaa ma gaadhid marka ha ogaadaan haweenku nin kasta oo wanaagsan inay haweenay ka dambayso ay qiimo u leedahay nin kasta oo wanaagsan hooyaa dhashay hooyaa soo barbaarisay haddayna hooyadii halkaa soo gaadhsiina maanta hebelow lama yidhaahdeen hooyo waa daraaddaa waxay maanta hebelow dadku ii hayaanoo raxmaddaadu hooyooy hanti weeye igu ladhan haddaan iminka tiriyo ammaanta adna iyo xaaladdeeda soo koobi maayo laakiin kollay goor gaaban hadalkeed gaaban waxaynu ku jirnaa wakhti gaaban dad badanna wayna sugayaan buuggana raggii soo akhriyay baa iiga dambayn doona laakiin waxaan leeyahay hadna aadan aad iyo aad baan kugu hambalyaynaynaa ilaahayna subxaanahu watacaala wuu ka abaalmarin doonaa wakhtiga aad gelisay ummaddaada iyo wakhtiga aad u hurtay iyo adduunka iyo wakhtiga aad qiimahaad u hurtay intaba ugu dambayn waxaan kusoo gabagabeynayaa buuggan adna aadane caawa horteenna yaalla ee qiimihiisa gaarkaa inagu leh ee sida la ii sheegay weliba loogu talagalay lacagta ka soo baxdana in lagu dhisi doono qayb ka mid a isbitaalka oo loogu talagalay haweenka annagoo awalba xidhiidh gaarii naga dhexeeyey telesom iyo edna aadan oon dhismaha isbitaalka iyo jaamacaddaba qayb weyn ka qaadannay ma aha markii koowaad aanu qayb ka qaadanay adna iyo dadaalada ugu jirta qarankan iyo ummaddeenna horumarkeeda waxaan insha allahu tacaala caawa annagoo isku dambayn doonno waxyaalo badan oo kalena noo dambeeyo xidhiidhadeedu gaar yihiin halkan ka sheegaya inaan buuggan ka qaadan doonno haddii ilahaydnimo 100 buug oo aanu ugu talagalnay inaanu dhigno meelaha caamka iyo dhallinyarada intaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay mudane cabdiwahaab maax buugta intuu qaadanayeen telesobna xagga horey ka sheegeenba waxaan u yeedhayaa mas-uulkii ugu dambeeyey ka hor intaanan u gudbin qolooyinkii inoo soo akhriyey buugta waxaan u yeedhayaa cabdiraxiin maxamed cumar oo ah maamulaha som cable shirkadda som cable بسم الله الرحمن الرحيم مروى أدنى iyo golaha wasiirada dhammaan martisharafta ka soo qayb gashay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaa farxad gaara ii ah inaan ka soo qayb galo buugga doctor adnaa oo runtii qiimo weyn noo leh haddaanu nahay dhallinyarta reer somalilan aadni way naga xigtaa cid kasta oo waayo qofku waxaan wax isugu nahay marka diinta iyo dadnimada laga tago dowladnimada runtii waa qof dal jecel oo somalilan darada ka meel kasta oo ay joogtana aan shaki gelin somalilannimadeeda runtii aadna waxaan leeyahay waxaad roor moodal u tahay ama ku dayasho aad u mudan tahay dhammaan haweenweynaha somalilan runtiina inay kugu daydaan mudan aadna runtii dee intii taqaanay ama ay shaqaa ku kulmaan ama nolol ku kulmaan baa sheegtay waxay mudnayd annaguna dee intaa aanu kala soconnay warbaahinta iyo intii aanu soo barbaaraynaba warkeeduna soo gaadhayay waxaan wanaag ahayn kuma ogin runtii waxaan leeyahay adduunyada sidaa aad sharafta ugu heshay ilaahay aakhirana sharafteeda ha ku siiyo runtii qofku shaqadiisu waxay sheegtaa qofnimada iyo qofku shakliga uu leeyahay aadni waxay runtii sidaan taariikhda ku hayo ay rumaysay himiladii aabbaheed uu lahaa taasoo aan odhan karo waa qof baariya oo runtii fulisay himilo uu aabbaheed lahaa oo uu wakhtiga iyo dee iyo mawdkii soo gaadhay uu rumayn waayey tacab kastay soo martayna maanta wuxuu yahay isbitaalkii iyo ujeeddadii isbitaalka ujeeddadii ay ka lahayd waxaan qabaa mid ay tahay mid ay ka gaadhay iyadoo sooba saarta dadkii iyaguna cisbitaallo la mida furi lahaa mustaqbalka aadna waxaan leeyahay kollay taariikh iyo dee maaragtay wixii noloshaada ku saabsanaaba buuggana waa laga heli doonaa inkastoo aanan akhrin runtiina waxaan jecelahay inaan akhriyo oo hooyaa tahay
hooyaduna qofka inan iyo inanba kudayasha ayaa ugu sugan runtii hooyadu waxay u dulqaadato oo aabbaha iyo nin rag go-aan u dulqaadan baa jirta waxaan leeyahay hadal badan runtii sida la sheegayay wakhtigoo kooban iima bannaana ka shirkad ahaan soo iyo som cable waxaan jeclaa intaa iyo in ka badanba inaanu geysano sidaa dadkii iga horreeyey sheegana aanu diyaar u nahay horumar kasta oo ay bulshada kaga qayb qaadanayso inaanu si gaara iyo si dhowba ugala shaqayno oo aan ugu ballan qaadayno inaanu wax kasta oo wanaag oo ay dalka iyo dadkaba gaadhsiinaysa aanu kala qayb qaadano balse madashan aan joogno ee buugga waxaan ka qaadan doonaa haddii aan la idhaahdo 200 oo buug waxaana leeyahay bartaa ka sii wad oo inta nolosha iyo cimriga kuwa hadhayna ilaahay ha kuu barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad buu mahadsan yahay cabdiraxiin wiilkaa dhalinyarta ah ee ka socda mas-uuliyiinta som cable intaas ayaan kusoo koobayaa mas-uuliyiinta intaasanu kaga imanaynaa waxaan sidaan hore idinku sheegay u yeedhi doonaa 4 qof oo buugga soo akhriyey buuggan aynu caawa halkan u fadhino 4 qof oo soo akhriyey oo in yar min 5 daqiiqo inala wadaagi doona bal wixii ay ka arkeen buugga siday u arkeen iyo waxa ku qoran waxaan u yeedhayaa xildhibaan cabdiraxmaan yuusuf cartan marwo yusur abraar marwo hindo maxamed jaamac iyo qofka inoo daadihin doona barnaamijka oo ah sucaad ibraahim ilaa qolooyinka buugta soo akhriyey dumar bay u badan yihiin samanka waa samankii dumarka iyo dhalinyarada soo dhawaada baan leenahay waxaan mikrofoonka ku wareejinayaa sucaad oo inoo daadihin doonta waqtigana waad inoo soo koobaysaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسيرة مروين كقالقة مسؤولين تكاله لأن يرى رك يدمر به قفل بما يقام كوكفر يا يعني هل كان كسلام يا أو مهد وين بينات هاي إن أنا مروده يقول قال السنة سومالي لان أنا بوجي ذا آخرينه طبعا أنا يدين له وذاقنه سيدي أنا أرجنا يوحنا نوجا صباحي runtii taariikhda adna aad baa looga hadlay waxqabadkeeduna wuu muuqdaa marka groupka iyagana sida la sheegay waxaanu ka koobanay 3 dumar ah iyo hal nin waxa weeyaan wax badan baa nimanku masraxiyada nagaga badnaayeen marka caawa maadaama gabadhna buugeedii la soo bandhigayo waxay fursad u tahay dumarku inay iyagu isnaqdiyaan is akhriyaan iska faaloodaan isu abaal celiyaan iska waramaan marka saasay dumarku ugu badan yihiin ha u qaadanina inaanu ragga dhinac u saarnay laakiin waa habeenkayagii marka saasaa loola soconaya qof waliba waxbuu ka soo akhriyay laakiin waxaan ugu horreysiinayaa dr hinde maxamed oo iyadu si kooban shakhsiyadda adna iyo qofkay tahay inala wadaagaysa kusoo dhawow dr hinde habeen wanaagsan asalaamu calaykum waan idin wada salaamayaa wasiirada idinkala saari kari maayo dad badan aanan aqoonno way joogaan laakiin xoog baan idin salaamayaa martidoo dhan gaar ahaan habaryar adna maasha allah waan idin wada salaamaya anigu
hadda markii ugu horreysaan maqlay anigoo gabadh yar ah oo dugsiga dayaxa 200 oo inan la dhigta ayaan magaceeda maqlay laakiin waxaan kaloo idiin sheegayaa inay aniga familigayga tahay familigayga tirigiisa ka mid tahay marka markii ugu horreysaan arkay wax weeye 1974 oon xamar ku arkay gurigeedii alla yarxama adeer axmed xuseen bulbul oo adeerkay ah aan ugu tegey markaasay igu horreysay iyo anigoo u tegay soo salaamay iyada iyo carruurta xasan baa idinka warrami doona oo habar wadaagiyadaya taa markan ka gudbo aniga qiimaha ay leedahay iyo taariikhdeeda waxa weeye qof iyada oo wax isbartay iyadu qalin iyo buug qaadatay sida wax loo qoriyo sida wax loo akhriyo isbartay taa markay isbartayna ay noqotay waqtiga ay iyadu kacdayna aynan iskuulla lahayn taa iyaday jirto adni waxay samaysay dadkii ugu horreeyey ee somalilan ee dumar ee waxbartay inay macallimad u noqoto iyadoo jabuuti ka soo noqotay kuwaasina ay u saamaxeen inay inan kastoo reer soomaaliyan ama somalilan ah maash ay waxbareen way ka hadlaysay wasiir shukri taas iyaday jirto anigu waxaan xusuustaa markaan tegay xamar adnana bartay 1974 hablaha reer somalilan ee ahaa dugsiyada macallimiinta ama brisbulada ugu waaweyna xamar ku yaalay banaadir iyo 15 May inay ahaayeen hablo reer somalilan oo iyadu waxbartay inay iskuullada haysteen oo macallimiin ka ahaayeen kuwaasina ay annagana jaanis noo heleen inay waxna baraan marka horta waxbarashadeedii ma aha dhakhtarkan iyo hawsha ay iminka somalilan ka samaysay every person somalilan gabadha oo waxbaratay waxay lugta ugu weyn bay ku leedahay anigu markaa waan kala lunnay habaryar anigana quur baan tegey waxay ii xigtay araggeeda inaan arko iyadoo soconaysa ayay aniga iigu timi anoo markaa waddanka ku soo noqday oo jaamacadda burco jooga iyadoo gaadhi buugaaga sida oy reerkeediina wado ayay noogu timi jaamacadda burco taa waxay ii sii raacday markii ay haddana ay samaysay gabdhii ugu horreeyey ee midwifes ah ee gobollada bariga intay ka soo kaxaysay ay halkan keentay ay umulisooyinkaa tababartay markay tababartayna ay gobolladii ku noqdeen wax weyn ka tareen graduationkaana waan la joogay waana ku hambalyaynayaa waxaa taa ku xigta 2010kii inaan akhriyey buug ay ka mid ahayd iminkana ka mida buugaagta ugu waaweyn ee lagaga sheekeeyo istaragalka dumarka adduunku ku jiraan ee la yidhaaho half the sky ee documentariga iyo muufiyada laga sameeyey ee cid walba ku dhex jirto marka intaana hadalka badinin waxaan sheegayaa uun waxa weeye amazing woman inay tahay amazing role model inay tahay cid walbana ay u ahayd lana ilaawi karin aniguna aanan halkan fadhiyan waxna barteen haddaanay iyada ahayn wasalaamu calaykum dr hinda aad bay u mahadsan tahay iminka bal waxaan ku wareejinayaa yusur abraar oo buugga soo akhriday waxyaalaha ugu muhiimsan ee buugga ku aragtay ee na xiise gelinaya dhammaanteen iyadana gaar u xiise geliyey bal inay nala wadaagto horta dhammaantiin waan idin salaamayaa dowladda iyo shacibka iyo habaryar edna oo aniga qudhayda role model ah marka buuggan waxaa laga keenay Friday night baa laga keenay sabtidii jimcii waan akhrin kari waayey because waxa iga lumay classeski aan ku akhriyay Saturday-gii oo dhan waxaan idhi waa maanta Edna Day baan idhi
marka buugga from beginning to end waan akhriyo waan dhameeyey waxaanan u dhameeyey waxa weeye bugaga qaarkood iyagaa iska kaa soo qabta bugaga qaarkoodna maba dhigi kartid marka buugga edna qofkii doonaya inaad akhrido waxaan kuu sii sheegayaa imankaba inaad dhigi karayn mar haddaad bilowdo waxyaabo fara badan iyaan maxay ahayde ii jooji markaad baahan waxyaabo fara badan iyaan ka bartay buuggaasi edna weligay waan ogaa inay dee qof maaragtay role model noo wada tahay giddigayo isbitaalka ay samaysay all that one laakiin markaan buugga eego ilaa markay iyadoo inan yaro oo aabbaheed aadan dhakhtar oo aabbahayna ay saaxiib ahaayeen oo isbitaalka hargeysa ka wada shaqeeyeen ay maxay ahayday ag la socon jirtay waadharhka uu barayay sida maaragtay waadharhka dadka loo daweeyo isagoo aan barayninoo islahayn barbow haddana barayay marka isaga iyaa ku abuuray maxay ahayday edna ku abuuray inay jeclaato caafimaadka iyo waddanka wax u qabato qofka ku abuuray ee ku soo barbaariyey ee maaragtay ku dhiirigeliyey iyo isaga oonan waxaa samee odhanin aabbaheed buu ahaa marka horta iyada uun maahin aabbaheedna inaan u mahadnaqan weeye waxaanse markaad ka soo gudubto yaraanteedii eed ka soo bilowday jabuuti iyadoo ay iskuulka ka dhigatay ay dabadeetana england tegtay ay ka soo noqotay ay maaragtay hargeyso ku soo noqotay nolosheedii oo dhan markaan eegay maaragtay wada akhriyey oon islahaa waad idna waa taqaanaa waxyaaba fara badan baan ka barta oona ka ogeyn marka waxay ku tusaysaa laakiin inay qofku markuu determined yahay qofku markuu determined yahay inuu wax walba samayn karo marka edna iyadoo inan yaray tegtay england lagu barbaariyey wax lagu baray iyadoo dumar ay ka soo noqotay horta england oo wax badan soo baratay meel wallo oo ay tegtana had iyo jeer iyada ka soo dhexbixi jirta taasina waxyaabo dee macnii markay jumciyada qurama u dhaxayso u shaqaynaysay markay dowladda xamar ay u ahayd first ladyga u ahayd markay maaragtay ministerka ahayd wax walba oo ay edna soo qabatay waxay ku tusaysaa buuggaasi inay u samaynaysay si niyad ah si determinationa si maxay hayday yacni qalbiga ay ka samaynayso oo dadka weliba jacaylka ay u qabto dadka ay daweynayso iyo aad buugga kaaga soo muuqanaya maxaa kale buugga ka soo bartay markaa waxa weeye nolosha edna waxaan ka bartay in uu maaragtay had iyo jeer waxaan odhan jiray nolosha qofka waxaanu moodnaa inaynu inaku iswadno oonu bilaanka samaysan karno wax walba samaysan karno laakiin waxay naga sarreeya ina wada marka edna mar yacni waxyaabaha ay soo martay wanaag iyo xumaanba waxay ku tusaysaa inay noloshu tahay maaragtay ups and down leedahay laakiin ay muhiim tahay mar walba oo aad kufto inaad degdeg u kacdo taasina buug aad buu uga muuqdaa waxaan se aad iyo aad uga mabsuuday oon jeclaan lahaa dhallinyarada somaliland iyo meel walaba soomaali meelay joogtaba inay ka bartaan edna dhowr wax ka bartaan inay ka bartaan runta inay sheegaan oo honesty iyo integrity ay yeeshaan number 2 inay goal leeyihiin oo dee waxay hamaysanayaan u jiro haddaanu jirin waxaad hamaysanayso waxaad qabsan kartaa ma jirto ednana mar walba waxay ku tusaysaa buuggeeda inay ahayd qof had iyo jeer hamad leh hamadeeda aanan ku dhaqaaqda jecelna inay maaragtay ka soo baxdo marka dhallinyarada somaliland waxa buuggan ka baranayaan inay horta somaliland iyo soomaaliyaba ay ahaan jireen waddan maanta ka duwan sida aan nahay waxayna ku tusaysaa dadkii maxaa aad u dadaalay ee somaliland maaragtay u dadaalay maanta heerka ay soo gaarsiiyeen oo ay ka mid tahay edna waxa markaa dhallinyarada ay tusaysaa
inay halkii kabaha edna iyo kuwo kale oo ay rag wataan iyo dumar wataanba inay buuxiyaan looga baahan yahay oo ay yeeshaan kartida iyo maxay hamiga ay naftoodana wax ugu qabtaan familigoogana dareerahoodana wax ugu qabtaan dalkoodana wax ugu qabtaan taasaan ka bartay edna waxaan odhan karaa waa waxa weeyaan qof dumara oo courage leh waxa weeye qof dumara oo integrity leh waxa weeyaan qof dumara oo yacni just amazing weeyaan markaan buugga dhameeyey intoon saa u dhigay baan idhi haddii qofka dumarka ah la siin waayo ya price goon adduunka priceyada la bixiyo Nobel Peace Prize ka la yidhaah haddii idna la siin waayo waxba kama jiraanba waxan marka waan kugu soo yusur aad bay u mahadsantahay iminkana xildhibaan cartan ayaan ku soo dhaweynay بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة شرف وين بيتهاي هل كيران بوغان أخريي ويدن لو ذاقو وحيابا كوكوران وحن وذكرنا دمانتين وحن وذكرنا إن أدنى آدن إسماعيل أدنى آدن أختر أي قولوا وين قاعدي وأي نقرأ إنه ويسكر عصرنا هاي وحنو مالينا يا guusha waxaasoo dhan koobaysa ee ugu muhiimsan ee adna aadan inoogu deeqday waxa weeye waa buuggaa weeye buugga qudhiisa ayaa guul weyn ah sababtay tahay horta buugga haddaad bilowdid ma joojin karaysid siday u sheegtay yuusur u sheegtay haddaad mar bilowdid waxa weeye wuu qabsanayaa wuxuu ku qoran yahay luqad waadixa oo khafiifa oo ku soo jiidanaya oo aadan ku caajisaynin cidda doonaysa adna inay u noqoto fahamto dhaqankeeda iyo guulaheeda waxa loo baahan yahay inuu buuggan akhriyo buugga waxaad ka helaysaa adna oo 80 jir ah oo wiilasha kubadda la ciyaaraysa oo aad ka dareemayso firfircoonida iyo energy-ga ay hadda iyadoo weyn leedahay oo iyadoo yar waxaad buugga ka helaysaa adna oo iskuul Somaliland aanu jirin oo waxbarasho iyo inay waxbarato ku hameeysa oo aan fursadaha maanta yaalla aanay dalka jirin oo u haraada waxbarasho oo nasiibkeedu siiyay aabaheed daraadeed iyo ehelkii ku xeernaa inay Djibouti tagto oo waxbarato Djibouti siday mataqaana ugu haraadaneed waxbarashada waxaad buugga ugu tegaysaa adna oo dhowr iyo 10 jir ah oo waxbarashadeedii iyo dadka say ula xidhiidhayso aad ka helaysaa waxaad ka helaysaa adna oo waxbarasho dibadda u baxday oo England tagtay oo caddaankii iyo macallimiinteedii kaga yaabsataad ugu tegaysaa buugga waxaad u tegaysaa adna oo role models dumarkii ugu fiicnaa ee England joogay ee nursingka ka samaysatay qaar role model ah oo dhammaantood isu wada taagay adna waxaad buugga ugu tegaysaa adna oo soo noqotay Somaliland oo aan waxbarasho aanay jirin caafimaad jirin oo cidda qudha caafimaad ka shaqaysa uu yahay aadan dhakhtar oo aadan dhakhtar u yahay role model ku dayasho wanaagsan u yahay oo doonaysa inay beddesho xaaladda caafimaad ee Somaliland iyadoo aad u yar oo dhalinyaro ah ayay ka fikiraysaa adni inay dhakhtar samayso dhakhtar ay ugu abaalguddo aabaheed iyo Somaliland waxaad buugga ugu tegaysaa oo aadan ka يعني بالحقيقة هذا المتقنا كدالين أدنى أو كتكتي سومالان أو نقطي فيرست ليدي مروة كوبات الصومالية أو حاسكي محمد حجي إبراهيم عقالة أو كارنت عجيب كي عالمك يا مرحبا لكل ما يسو هذا تاي متقنا مدحونا أمريكا هذا تاي مدحونا شرملكا هذا تاي مدحونا رئيس وزراء إنجليزكا أو سيقروح بدن أو شرف له أو واج مثل يستدل كده
faana u ah ra-iisul wasaarihii markaas soomaaliya iyagoo laba dhallinyaro ah oo soomaaliya metelaya oo caalamka sawir wanaagsan ka bixinaya waxaad ugu tegaysaa buugga adna oo international world health organization ka shaqaynaysa oo 12 dal ka wakiilo oo tababaraysa min Darfur ilaa Liibiya ilaa muxuu ahaayay mtaqaan Yemen ilaa iyo Pakistan ilaa iyo Afghanistan baad buug ugu tegaysaa haddaad doonayso adna inaad baratid haddaad doonayso adna inaad ku dayatid adna buugga waa inaad akhrido weeye waxaan cid kasta oo dhalinyaro ah wiilal iyo hablaba aan ku baraarujinayaa inay hadday rabaan adna inay guula gaadhay inay akhriyaan buuggan adna oo ay kaga daydaan dayasho wanaagsan kaga daydaan waxaan weeye waa sababtaan u leeyahay haddii adna ay guulo waaweyn gaadhay guulihii oo dham halkan ay ku bartan ay ku urursan yihiin ciddii doonaysa role model adna inay ka qaadato buugga waa inay akhridaan odhanaya artan aad buu u mahadsan yahay a woman of firsts marka la akhriyayo adna taariikhdeeda 1 iyo 2 iyo 3 toona kuma dhammaan kara laakiin waxay si hufan oo nidaamsan oo qorshaysan ay noola wadaagtay waxay ku noqotay waxa soo dhan ay wax walba ugu horeysay ay noqotay gabadhii u horeysay iskuul la qoro gabadhii u horeysay ee scholarship ingiriiska ugu baxda gabadhii u horeysay ee gaari kaxaysa gabadhii u horeysay ee noqota civil servant high ranking official gabadhii u horeysay first lady oo educated ah noqota gabadhii u horeysay international UN staff noqota waxa soo dhami buugay ku qoran yihiin markaan akhriyay buugga waxay dib iigu celisay Hargeysa ama Somaliland oo wali iska haafmiye ah oo dadkeedu iska maaragtay deegaan miyiga uu yahay waliba caasimadan Hargeysa laakiin meelihii Ingiriisku xukumayay iyo maamulkoodu ahaa oo dad Soomaali ah oo fara ku tirisay ay deganaayeen iyo Ingiriiska iyo Hindidii u shaqaynaysay iyo adna aabaheed Allah ya raxma Dr. Aadan Ismaaciil oo ka horeeyay Soomaalidii waqtigaa jirtay in badan sababta ugu horeeyana waxay dheertay adni dumarka Soomaaliyeed ee waqtigaa jiray ilaa imikana jira sababta haddii aanu iskaagu dhisnayn oo aanu fakarkaagu si kale u fakarin waxa soo feeristis ah adni may noqoteen la'aanta aabaheed horta taasi sawirkaas ay tustay waxa kaloo ay tustay oo aan aad u xiiseeyay chapterka ay kaga hadlayso gudniinka oo taariikhda iyo sida hufan ay u qortay iyo khibradeeda iyadoo ku salaynaysa iyadoo inan yaro ah 46 oo ka timid iskuulkii Jabuuti oo iyadoo aan ogeyn dumarkii ay xaafadoodu ay qabteen oo la xalaaleeyay dhibaatada ay martay waa dhibaato gabadh kasta oo inaga midi ama ay ayeeyadeed ka maqashay ama hooyadeed ka maqashay ama ay iyaduba la kulantay runtii taas siday u dhigtay adni aniga jiridhacay igu abuurtay waqtiga siday ahayd jiridhacay gelisay chapterka kale ee xiise geliya waxa markay Ingiriiska tagtay oo isaguna qayb weyn ka ahaa formative stageska adni Dr. Adna soo martay siday u xusuusato street kasta nurse kasta school kasta oo ay tagtay macalmadeedii ugu xiisaha badneed ee xiise gelisa waxay ahayd Tiger Monk iyo sidii adna uga dhigtay qof maaragtay surgical nurse bay ahayd baan jecelahay ee adna waxay ka dhigtay qof u darban waa halkii boobe darban inay shaqadeeda u qabsato sida ugu hufan adnana kaga tagtay waxyaalo badan oo ay kula soo noqotay Somaliland tay ugu cajiibka badnayd ee maaragtay aan ka yaabay waxay ahayd markay Somaliland ku soo noqotay with all qualifications ay u timid directorkii meesha caafimaadka ay filaysay inuu job description u dhiibo ilaan waa qof la soo tababaray oo cilmi lagu soo baray oo dhisan ee uu yiri orodoo shaqo tago orodoo soo laguma soo tababarin
ay ka yaabtay ma ogtahay taasi ilaa imika maskax waan aaminsanay ilaa imika inuu dhaqankaasi jiro waa waxyaalaha inoogu wacan inaan servicekeenu social servicekeenu aanu hufnayn sababtaa qofka shaqaynaya lama siiyo tasks uu ku shaqeeyo cid manage garaynaysa cid oversee waxaasoo dhan looma sheego taguun baa la yidhaha halkaa gal marka la yaabkii aydni la yaabtay kartiday u dhalatay aawadeed iyada ayaa la timid qaabkii iyo nidaamkay u shaqayn lahayd laakiin taa abaalkeedu wuxuu noqday 4 sano inaan mushahaar la siin marka adni waa qofka kow siday u fakarayso aan waqtigii dumarkaa waqtigaa jira u fakarin qaar badan oo imika joogaana aanay u fakarin waa qof aan la higsan karahayn sababtoo ah qaabkii ay maskaxdeedu markay yarayd u samaysantay ayaa waxay nolosheeda ugu diyaarisay inay noqoto qof ka gadisan dumarkii kale ee waqtigaa jiray iyo kuwa imikaba waa halka boobee dareenkaa waan la qabaa ah siday u socoto siday u labisato siday u hadasho intuba inay ka gadisan yihiin dumarka waqtigan jira taas waxay tusaysaa waxay tusaale u tahay hablaha dhalinyarada imika soo kacaya bal inay isbar qabtaanoo dareenkooda ay ka turjumaan si ay u gaadhaan halkay doonayaan inay qabtaan ugu dambayntii one round yusr baan ku celinaya mise way kaa dhan tahay ubabasa waa xilli dambe soo maha adna waxaan leenahay anoo baanalkana u mahadnaqaya wax badan baad nolosha soo aragtay 82 sano oo maaragtay kor u socda in yaroo wagashina soo gashay noloshaada buuggana aad si fiican ugu qortay wax allaaliya wixii ku maray weliba buugga si waxaad u hadashay waadix ah oo noloshaada qoyska taabanaya tareerka taabanaya tii guurkaaga taabanaya marka buuggaasoo kale welina muu soo marin weliba inuu qof dumara ka yimaadana way adag tahay adna waxaan u rajaynayaa cimri intan ka dheer insha allah waxaan u rajaynayaa adna oo dagaalka ay ugu jirto in Soomaaliland la aqoonsado inta ay nooshahay soo gaadha oo aynu wada damaashaadno adna oo legacygeedii ay ka tagtay aynu u ballan qaadno inaynu halkaa ka sii wadno oo ah dhakhtarkan weyne Hargeysa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi baanalkana aad baan ugu mahadsantahay aad bay mahadsan yihiin banalka fadlan sacab igula sii dhaweeya afartaa qof ee waqtigooga u huray inay akhriyaan buugga qarada weyn leh qiimaha badan runtii barnaamijku gabagabuu ku dhow yahay waa tahay barnaamijkeenu gabagabuu ku sii dhow yahay waxaan sugnaaba waa marwe adna aadan iyo dhowr mas'uul oo xukuumadda ka socda oo inoo soo xidhi doona iyagu barnaamijka sidoo kale haddii ay joogaan cid ka socota xisbiyada mucaaradka ah iyagana waan soo dhaweynaynaa markii hore maan sheegin soo dhawaada baan leeyahay hadda ma la ismaqlaya waay intii aynu u nimidba hadda ayaynu gelaynaa ugu horreyn intaanan u gudbin marwaadna aadan iyo mas-uuliyiintaba intaanan u gudbin waxaan u yeedhayaa gabadh u hadli doonta dhallinyarada hablaha ah ee Somaliland hablaha quruxda badan ee goobta fadhiya dhammaan hablaha mutacalimiinta hablaha dadaalaya hablaha hiigsanaya inay maruun ay adna aadan oo kala noqdaan qof ku hadli doona ayaan u yeedhi doonaa waa gabadha kaliya ku jirta boardka Sooyo sidoo kale ah gabadha dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada fadlan ila soo dhaweeya Sahra Kiinkayn Sahra sidoo kale waa gabadhan waalid u ah habar baan u ahay
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إلهي بقى مهدله مناسبة اسكو كاني maalmaha iyo habeenada iyo isbuucyada isbadbedela een midna midkiisa dhaafin waxa uu mudan yahay maalmaha usbuuca kamid ah aniga saarakiin ahaan farxad sharaf iyo maamuus gaar ay ii tahay maama adna bandhiga buugeeda inaan ku hadlo afka gabdhaha dhalinyarta Somaliland wax badan baa laga yiri adna iyo buugaba ma ka hadlayo laakiin waxaan ka baran karnaa caawa in badan waxa lagu celceliyay role model ama adni tusaale nool inay tahay qof inuu guusha noocana soo gaadha midhaheedu way macaan yihiin sida caawa muuqata laakiin dariiqa loo soo maraa aad buu qaraar yahay u xanuun badan yahay u jaranjarooyin badan yahay waxaan ka hadli doonaa ka gudbidda caqabadaha annagana haddaan nahay hablaha dhalinyarta ah tusaale noo noqon doona dhammaan waxaan nahay ardayda nolosha markaad nolosha hormood u noqoto ayaad noolaha oo dhan tusaale dhiirigeliye iyo modelba u noqotaa nolosha guud ahaan waxaa jira laba korniin ama growth waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo waxaa jira growing old is mandatory growing old is mandatory, but growing up is optional. Inaad korto ida'adaadu korto waa mandatory, waa waajib rabbaani oo cid waxba kaa weydiinayn. Maama adna qeyrkeedu way kala siman tahay inay kortay oo 81 tahay. Laakiin maxay kaga duwantan caawa u joognaa growing up optional inay doorato inay korto oo legacy iyo dhaxal ka tagto nolosha. imisa aan sir dhageysano caawa maaman maamuusayna qof walba halkiisa mas'uula ku noqdo caawa malaa'igta garbaha saaran bilaa camal ka dhiga waa inay is dhageysanaa imisa markaa tusaalaha aan ka hadlayo tada'da iyo takorniinka bini aadanka ee kale imisa 81 jira iyo imisa 100 jir ah oo rag iyo dumar wax matarayaala jira da'dii uun bay kareen laakiin xagga kale aadni ka kortay kamay korin waa intii aadni dadka kaga duwanta wax ka baranayno qofku nolosha laba choice buu leeyahay ama laba dooq inuu isagoo nool dhinto iyo inuu isagoo dhintay noolaado ta kaliyan hubaa waxa weeye adni xitaa markii adduunka ka tagtay inay sii noolaan doonto waayo jiilka soo socda iyadoon cidina ku khasbayn manhajkana ayna ku jirin bay adna garan doonaan waayo cisbitaalka adna jaamacadda adna buugga adna iyo wax kastoo adna ay dhaxal uga tagtay jiilka Somaliland iyo ka Soomaaliyeed waqtigii ay noolayd ee ay yarayd adni iyo hadda waxay jeexday dariiq aan hore cid uga horreyn aad bay u nasiib badan tahay in buuggeega la yidhaahdo buuggii hormoodka ah ay wax walba uga horreysay bilaadanku wuxuu iska jecel yahay wax walba inuu uga horreeyo magaca buuggu inta uu ina tusaya oo uu xambaarsan yahay waa inay hormood ahayd midhahu marka la guranayo way macaan tahay laakiin in wax la beertaa aad bay u adag tahay adkaysi dadaal dhabar adayg iyo samir badan ayay u baahan tahay adniintii ku guulaysatay ay intaasoo dhan kaga soo gudubtayna waa intaa in qofku iskii isku taga caawa waxaan rabaa kelmadda inay habluhu aad u dhegaystaan fariintaana ay iga guntaan in qofku iskeed isku taagaa nolosha waa wax weyn adna waxa dhalay aadan dhakhtar oo aabba caan ahaa adni waxay ahayd marwadii hore ee ra'iisul wasaarihii Soomaaliya madaxweynihii hore Somaliland laabta umay qaraacan inuu aadan dhakhtar dhalay laabta umay qaraacan inay marwadii koobaad ahayd laakiin waxay u qaraacatay inay tahay aadna she is adna her identity
meel lamay soo taagnaan sida maanta jirta ina hebel baanahay adigoo dameer iska yeeshay dhanta intaad waxa aabaha ku faanaysid waxay samaysatay andatan tuu gaar ah hashtag haddii caawa la isticmaalayo social media waxaan isticmaali karnaa powerful Somali women, women of the soil, the iron railing. marka saddexaad markaad magac yeelato inaad naftaada ku meeraysato maaha abtigay boobaa sheegay oo iskumay mashquulin adni caawa qofka loo dabaaldegaya waa iyada and she is very simple humble that's the humanity buug waxaa jira la yidhaahdo xikmadda nolosha oo nin reer muqdishii qoray jaamacadda muqdisho ah muqdishaan tegey waa uu soo raadiyey weli adna umaan keenin waayo aqoon gaaran iskuma liin jaanisna uma helin dadan ka codsaday inay geeyaan weli buuggii shalafkaygu ku jiraa 2 buug buu soo dhiibay buuggaa waxaa ku jirta adni inay tusaale tahay buuggaa waxaa lagu soo bandhigay Soomaaliya goboladiisa dad badan way ka hinaasan inaguba saan u odhan lahayn maxaa loogu dari waayay dumarkeena danna wuxuu ku yidhi she is different waa identity-gaan ka hadlayay she is powerful Somali woman iyadaa dooratay inay halkaa gaadho 2017 annaga xafiiska joognaa maalinta haweenka adduunka ayaa loo dabaaldegayay shaqaalaha intaan iskugu yeedhay la yidhi xaflad soo abaabula ayaan ku yidhi wax kale iska daaya qof walba waxaad ii soo dirtaa who is your role model rag iyo gabdhaba iyo sababtuu kugu noqday weli folderkaas hoonaya xafiiskii hore waa ka tegey xogtaasi ku jirto qof kasta wuxuu yidhi adna ayaa role model ah rag iyo dumarba anigoo ku hadlaya magacayga iyo markaa waxaan isweydiinayay maalinta okay adna who will be next yaa ku xigi doona waa su'aal inagu taagan adnina waxay haddii markii adduunka ka tagta ay sii noolaanaysaa legasiga inooga tagtay markuu sii noolaado iyadoo adduunka ka maqan marka waa in loo diyaar garoobaa caawa wax badan baan u hibayn lahaa maama adna waxa ugu qaalisan aan u hibeynayaa on behalf of Somaliland ladies and on my behalf I will dedicate one lovely hug to my mom. ما شاء الله aad bay u mahadsan tahay saarakiinka ahin waad runtii wada garanaysaan runtii waxaan rajaynayaa inay iyadu inoo noqoto adnada mustaqbalka imise qof baa isweydiiyey sababta buuggan loogu bixiyey gabadhii ugu horreysay wax walba ama ya isweydiiyey talo waxyaabahaas waa maxay anigu runtii weli buugga maan akhrin laakiin aad maadaama ay adni tahay qof aan jecelahay qof aan ku daydo markaan akhriyay taariikhdeeda waxa ii soo baxday in adni wixii wax kastoo ay ugu horreysay xataa aan la tirin karaynba waxyaabahay adni inoo bilowday ka guud ahaan Somaliland iyo ka gaar ahaan hablaha inaan la tirin karayn balse dhowr qodob ayaan doonayaa in idinka xasuusiyo adna aadan waxay ka mid ahayd yaraanteedii hablihii yaryaraa ee ugu horreeyey ee iskuul la qoro kow waxa ay adni ahayd gabadhii ugu horreysay ee waxbarasho u tagta dalka UK adni waxay ahayd markii ay soo noqotay umulusadii ugu horreysay ee ka howlgasha waddanka sidoo kale adni waxay ahayd gabadhii ugu horreysay ee noqotay agaasimo guud iyadoo noqotay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka sidoo kale adna waxay gabadhii ugu horreysay ee noqotay wasiir ugu horeynta kulley barnaamijyada imika bariyaan waxaan maqalnaa waa wixii ugu horreeyay laakiin waxaan filayaa markay adni meesha joogtay inay cid kale ay ka xishoon doonto inay tidhaahdo waxaasaan ugu horreeyay ma dhadhawaa dhammaanteen baabuur baynu wadanaa adni waxay gabadhii ugu horreysay ee baabuur ku dhex wadata jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka dibaddiisaba kulley
adni waxay ahayd iyadoo 65 jir ah oo retire garowdo shaqadeedii ka retire garowday haddana waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee cusbitaal dhista weli miyaan haynaa gabadh kale cusbitaal dhistay waa maya weliba waxa kaaga daran cusbitaalkeedu wuxuu ahaa cusbitaalkii ugu horeeyay ee dhalmada iyo daryeelka hooyada miyaynu sii wadnaa runtii waaga inoo bari doonaa haddii aynu wadno inta waxay adna ugu horeysay adna cusbitaalkeeda adna waxa uu ka mid yahay uu kaalmaha hore kaga jira cusbitaalada ugu wanaagsan Afrika gaar ahaan cusbitaalada ugu wanaagsan geeska Afrika wuxuu kaalinta 13aad kaga jira 205 cusbitaal ee dhalmay Afrika ugu wanaagsan waxa ku dhashay marka laga soo bilaabo markii la furay ilaa 2018 ubad gaadhay 22144 ubad ah ay ku dhashay cusbitaalkaadna runtii adni abaalmarinaha ay ka heshay adduunka ama recognitionska ma aha kuwa la soo koobi karo waxay heshay abaalmarino badan oo caalami ah oo ka kala yimid jaamacado iyo ururada iyo wadamo waxa laga wareystay TV badan oo caalami ah runtii waxaan hubaa dadka adduunka inta ay Soomaali yaqaanaan ama ay Somaliland yaqaanaan waxa ka badan inta adna aadan taqaana adna waxa loogu magac daray the Muslim Mother Teresa Mother Teresa di muslimada ahayd ayaa loogu magac daray waxaan doonayaa inay kelmadeediina la wadaagto waxaan stage-ka ugu yeedhayaa marwo adna aadan Ismaaciil بسم الله الرحمن الرحيم مرويدي مدنيال وزير هذا إنه جوجا مانتا وزير كاش دفاع وزير كوحبرشة وزير كديجان وزير كبيرها الدل كيجا سوماليلاند waxaan salaamayaa agaasimayaasha madaxda jaamacadaha waxaan salaamayaa dadka ka socda golayaasha qaran waxaan marti qaadayaa dadka ka socda ururada bulshada sharikadaha dalkeena ka shaqeeya marti sharafta ka timid dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ma soo wada koobi karo aad baan u qushuucsanahay qofka aan ilooba hayga raalli ahaado waxaan dhammaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu ma doonayo inaan ka sheekeeyo taariikhdayda ciddii doonaysaa meeshay doontay ka akhrisan ama ay ka maqli waxaanse doonaya inaan dardaaran idinkaga tago waxaan buuggan bilaabay dhowr jeer ayaan kala bilaabay oon dhigay oo intii waxaan qoray iga lumeen in badan cajiladaan ku duubay way iga masaxmeen way lumeen haddaan dib u dhageystay haddana waxyaabo badan baa ila noqon waayey oo aan haddana dib u masaxay oon dib haddana u bilaabay waxaan xusuusnahay 2005 anigoo wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland ah ayaa waxaan u duulay dalka Mareykanka dhowr magaalo waxaan u duulay France hargab xun bay hayay xumad bay haysay haddana fariimihii waddankayga aan ka siday ayaa culays igu hayay waxaan diiday inaan fasax qaato waxaan horta bal missionka soo dhammee markaan hargeysa ku soo noqday ayaa xumadaan u soo dhacay subaxii galabtii aan imi subaxii wafdi jarmala ayaa wasaaradda arrimaha dibadda igu sugayay
anigoo gariiraya oo xumaday hayso ayaan tan go' shaala isku duubay ayaan wasaaraddii tegay malaha 10 mirir bay la joogeen 10kaa mirir 10 saacadood bay igaga badnayd waan gariirayay haddana inay iga gartaan ma doonayn dhowr paracetamolna waan soo liqay shaah iyo maxaan ku sinjibiil iyo toon iyo filfil iyo waxaana waan ka sii horreysiiyey yaan lagaa garan baan isla dhuux tagoogaan ugu sii dhaashday markay albaabkii ka baxeen aan sii sogootiyey ayaan dareewalka yidhi ila carar gurigiigee shaqaalahaygu anigoo 10ka aroornimo soo rawaxa weligoodii may arag gurigii baan galo waan isdiday waxaan isleeyahay xumad yar hargabkaa ku hayo waa cuna xanuun show of wareen bay haya maalin iyo 2 iyo waan ka sii daray waa sheekh dirir baa laygu yeedho waa lay gunaanadayo waa quraan baa la akhriyo cashar baa laygu tufayo xumadii baa ka sii dartay markaasayna hadda wow waa xisaabtii kullayd weeyaan bal insurance kan United Nations ka caafimaadkan leeyahay ayaan weli ka faa'iideysan ayaan hal ay qaado England hal ay geeyo England baa laygu celiyay waa la raacay waa la garab galay isbitaal baa la dhigay waxay mid waalan tahay ma 5 maalmood baa pneumonia ku haysay pneumonia waxay ii haysaa shaqaaliye caafimaadka isbitaalkayga joogaan ma waa fiicnay it's okay I just have a cold waa little bronchitis weeyaan dawooyinkana ma jeclay calaa kulli xaal waa lay daweeyey qasab baa 2 toddobaad laygu hayay London 2 toddobaad ayaan fikiray bal haddii iminka aad tadqada laadi lahayd wixii ku soo maray adduunkaaga oo dhan waad la dhiman lahayd markaasaan bilaabay inaan buuggan bilaaboon qoro 2005 dhowr iyo 10kaa sannadood maraan 2 xaashood qoro maraan bilo iloobo maraan ayay ahayd waxaan doonayaa buuggani inuu ahaado inuu ka hadlo taariikhda dalkayga Somaliland adna aadan waa shakhsi taariikhdayda Somaliland ee la xaqiray ee la caburiyay ee la mansaxay ayaan doonayaa in xaqiiqda dalkaygu wuxuu yahay in la arko la ogaado waxaan doonayaa inaan ciddii akhristana aan ugu beero kalgacayl inaan ugu beero kalgacayl dal wanaagsan oo aynu ka dhalanay laakiinse aan la marinin waajibaadkiisii aan la marinin waxaan kaloo doonayaa inaan la dardaarmo haddii halkaa arday ku jirto ama ciddii danaynaysa bini aadamka ama ciddii ka hawl gasha inay dad buka u shaqeeyaan in aan dardaarankan uga tegayaa uu yahay qofkaa bukaad u shaqaynaysa ha eegin gaadhiga keenay ha eegin banka lacagta u taal ha eegin xariirta ay xidhan tahay ama uu xidhan yahay waxaad ku xisaabtantaa qofkaas markuu cisbitaal la keenay inuu horta go'aan adag gaadhay in cisbitaal la geeyo iyo in kale haddii ay tahay qof uur leh waxaa laga yaabaa inay tashi badan la yeelato dad badan cisbitaal ha tegin waxba kuma hayaane 10 cishaa la fooshaa ayaydaaba way kaa dhalin bal horta aanu sugno bal horta ninkaagu ha soo noqdo bal waagu ha inoo baryo bal horta roobku ha qaado bal horta qorraxdu ha soo baxdo by the time waqtiga ay kuu timaado waa waqti ay kaa maarmi weyday
oo ay isu kaa dhul dhigtay oo ay kuu faydatay oo ay dhibaatadeedii kuu sheegatay waxay markaa kaa mudan tahay ixtiraam waxay kaa mudan tahay kalgacayl waxay kaa mudan tahay soo dhoweyn waxay kaa mudan tahay oo kaa sugaysaa xanaano waxay kaa doonaysaa inay kaa aragto indhahaaga ka aragto inaad u damqanaysa iyo in kale inaad bogsigeeda dan ka leedahay inay kaa dareento weeyaan waxayd kaa doonaysaa wixii ay kaa filaysay oo dhan inay kaa hesho ee wanaagsanaa markaa ixtiraam weligaa ha iloobi qoftanoo waysu kaa dhul dhigtay waa kuu magan waa magan kuu soo gashay oo gurigaaga timid waa kuu marti waa kuu magan ixtiraam bay kaa mudantahay iyo soo dhoweyn dardaarankaa iga gunta haddaydanaan soo dhoweyntaa qofka iska u heli karaynin shaqo kala doono wastaad noqo nijaar noqo waxaad noqotaa meeshii kale quruskaaga ilaahay dhigay ka doono laakiinse dad buka oo jilicsan mid baa qurmuun mid baa dheecan ka socdaa mid baa malaxi ka dareeraysaa mid baa nabarkiisa darxigelayaa mid baa kugu mantagaya mid baan xejisan karayn waxyaabaha aynu xejisanno ee aynu basrino ee meel la tagnay albaabka hoosta kasoo xidhanno ay ka dareerayaan oon xejisan karayn xusuuso in qofkaa waxaasu ka dareerayaan inuu sidaada mar nadiif ahaa haddii ay isu faruurantoo kaaga xejisan weyda xusuuso inay beri nadiif ahayd uunsan jirtay xariir xidhan jirtay gogol nadiifa ku seexan jirtay maantana sanka laga qabsanayo way isu kaa dhul dhigtay dardaarankaa iga gunta dardaaranka labaad iga guntaysaan waxa weeye yeelo bartilmaameed yeelo sida balanbaalista ha dulduulin meel baad abbaaraysaa waxaad tiigso ka gungaadh guul ka gaadh noqo qofka ugu fiican ee hawshaa qabta dardaarankaa idin kaga tegayaa waxa weeye inaan wiil iyo gabadhba waddankan miskiinka ee somalilan jeclaada bal halkaynu dadaalkeennaa ku gaadhnay bal hadda xisaabiya waxaad xisaabisaan marka midku yidhaahdo inuu waddankaaga kugu diro ku yidhaahdo maxaad meeshan containers kugu xidhan maxaad ka doonaysaa meeshaan la aqoonsanaynin innagaa is aqoonsan innagaa is aqoonsan ilaahay baa ina aqoonsan aqoonsigaa ilaahay baan halkaa ku gaadhnay aqoonsi bini aadam markuu doono iska iman hadduu doono hadduu iman waayana dee waa yeelkadii 30 sanood baynu ku noolayn la'aantii marka waxaan aad idinku mahadnaqayaa waqtigiina qaaliga ah ee aad siiseen eed xafladda nagala soo qayb gasheen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gabdhihii nagaad iyo kuwii la shaqeeyey ee maalmahanba nafta iskaga qabtay inay xafladdan soo qabanqaabiyaan waxaan aad ugu marti qaadayaa dadkii howlahan la qabtay wax u daabacay howlkan siiyey hodheelkan mansuur xafladda aan ku qabtaba bilaash baana lagu siiya abaalkeed waan hayaa haddeer dahabshiil booyadda umulaha aan ugu dhaamiyo tii hore een biyaha ugu soo dhaamiyo dahabshiil bay siiyey telesom marmarka jaamacadda lagu dhisay oo dhan min dabaqa hoose ilaa ka u sarreeya iyagay siiyey cisbitaalkan dabaqaa sare garaayidka shubka lagu dhisay Omar baana siiyey dad badan oo aanan tirin karayn ayaa waqtigoodii igu tabarucay waqtigoodii igu tabarucay
qaar baa baabuurtooda iska rogadoodiina isiin jiray dowladda hoose waxay isiisay 50 lood oo ciida 32 lood oo ku daafadana way iga rartay meesha intaa dhismaha ka bilaabin 32 lood oo ku daafada meesha laga raray ayaan anigu 20 sanood imika u hoyanay oo deganahay oo ii hoy ah oo ii guri ah oo ii cisbitaal ah oo deganahay way waxay ingiriiska hadaan ku idhaahdo if it's good enough for you it has to be good enough for me too aad baan u qushuucsanahay dhowr jeer waad iga oohin gaadheen taa waan idinka goosan doonaa maalin baan idinka goosan doonaa waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa kelmadihii wanaagsanaa aad tiraadeen ma wada geeyo waan camal xumahay shaqaalahaygaba weydii aad baan u camal xumahay laakiin waxaan diidaa waxa qalloocan waxaan diidaa waxa sigsaaga ah imise jeer bay maqlaan anigoo miiska garaacayo stupid idiot maxaad waxaa u samaysa waan camal xumahay laakiin waxaan weliba ka sii cadhoodaa qofka aanan ka filaynin qofka aan jeclahay baan u sii cadhoodaa markuu wax khalada sameeyo kaasaan ugu darna ka stupidkaa badanaa waqti badan iskagama lumin kaas waa bilaa fayda kaasu fayda male waqtiga iskaga lumini laakiinse qofka burkaygu ku badan yahay ee nafta yar u keena waa qofkaan leeyahay you can do better than that sida waxaas kaamaan filayn waxaan ku hadla garan maayo waan qushuucsanahay waddankayga aan jeclahay ila jeclaada buuggaasna waxaan rabaa inuu u hiiliyo ummadayda kuwaa la xasuuqay inuu u hiiliyaan rabaa agoonta aabbayaashood la dilay inuu u hiiliyaan rabaa umulihii la dooxay inuu u hiiliyaan rabaa kuwii jasiiro la geeyey la dooxay inuu u hiiliyaan rabaa dadkaa guryahoodii intay ka baxeenee dukaama aroosyo taaluu soo xiirinayay oo arooskoodii u diyaar garoobaya weli gurigii ku soo noqon ee weli la sugayo ayaan rabaa inuu buuggaasi u hiiliyo dulmigaa somalilan laga galay ayaan rabaa inuu buuggaasi u hiiliyo waxaan doonayaa inaad idinkuna somaliland wada hiilisaan aad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته أهد محسن شكرا السرباد مانيو ولا هيدا الشرف يا إن لانو إن قاليات هاي يا إن لانو إن قاليات هاي السرباد مانيو ولا هيدا نشرا يا إيه لانو إن قالياتاي barnaamijku inoomu xidhmin weli fadlan inoogu noqda kuraasideenii wasiirayna la jooga wasiiradaasa inoo soo xidhi doonaa fadlan aynu maamulka sidii aynu marka hore u fadhinay ayaan jecel inaad u fadhiisataan oo ixtiraamtaan marwii hadal bayna tidhi hadalkaasaan jecelahay inaad gunudaan runtii marwaadna aadan qaranka waxay gashatay wax badan caawa maxaynu ugu hiilin karnaa waxaynu ugu hiilin karnaa inagoo iibsana buuggeedaynu iibsanaynaa waxaanad ogaataan in lacagta ka soo baxda buugga aanay adni jeebkeeda ku ridanayn ama jeeb kale ku ridayn balse 50% cusbitaalka loogu daryeelayo laguna waxaan u yeedhayaa iminka suu barnaamijka inoogu soo xidho 3 wasiir bayna la jooga waxaan ugu horreysiinayaa wasiirka cadaaladda jamhuuriyadda somalilan mudane cabdirasaaq cali cabdi qolooyinka taagan fadlan fadhiista
بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan madaxda iyo dadweynaha sharafta leh ka soo qayb galay xafladan iyo khaasatan adna aadan dhakhtar intaba waan idin salaamayaa salaan kadib xafladda waxaynu isugu nimi waxa weeye xusidda buugga ay soo bandhigtay marwo adna aadan dhakhtar in badan baa laga sheekeeyay caawa taariikhda adna waxa weeye qofaan maanta taariikhda adna ka dherigsanin ma jiro qofba magac buu u bixinayaa anigu dhow jeer baan isweydiinayay tolow markii la sifeynayey marka inantani maxay noqon kartaa anigu marka maskaxeeda waxaa ku soo dhacday inay noqon karto aynu oran karno inanta geeska malaha geeska afrikaba anigu ma qabo cid la tartami karaysaa inay jirto marka adno waa gabadha dadaal wakhtigeedii ku soo samaysay efforts fara badan ku soo bixisay waxyaalaha ay qabatay oo faraha badan laga soo sheekeeyey ilaa hadda shaqaynaysa taariikh weyn oo aad u weyn ayay ku leedahay qaranka somalilan waxaan noo malaynayaa dadka kuba hadlaa soomaaliga haweenkooda mar kale waxaan ku hamiyey tolow macabdiwaraabihii dumarka ayaa maskaxeeda ku soo dhacday wax badan baa madaxay ku soo dhacay intii la safaynayey marka adna aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan ugu hambaliyaynayaa aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad ayay maaragtay igu abuurtay farxad dadaalka iyo waxqabadka faraha badan oo aan kala go'a lahayn oon hakadka lahayn oo ay soo samaysay muddadii ay majuurka ahayd ilaa dhallinyarnimadeed intaa kadib maxay ku timi waxay ku timi laba shay baan u malaynayaa shay waxa weeye waa waxbarashada waxbarashadu waa shay qaali ah qofku haddaanu wax baran waxaan qabaa waxba ma qaban karo marka waxaa la rabaa waalidku ubadkooda inay u hiiliyaan oo ay wax baraan gaar ahaan hablaha tan kale waxaa keentay waxqabadka intiisa badan dhakhtarkay maamuleysay howlahay qabanaysay waxay ka timi xagga nabadgelyada haddii aan ummaddu nabadgelyo haysan oo nabadgelyada ka shaqayn oo nabadgelyada awoodda la saarin horumar lama samayn karo shakhsi shakhsi looma samayn karo gurub gurub looma samayn karo ummad ahaan iyo qar ahaan looma samayn karo totally wax walba waxay ku xidhan yihiin waa nabadgelyada weeye dadka reer somaliland meelay joogaanba baaqaan u dirayaa mar kasta u dirayaa waxa weeye waraan nabadgelyada ka shaqayno warnaan nabadgelyada ka shaqayno qof aan mas-uul ahayn yuu nabadgelyada inaga ciyaarin kaasoo caqabad ku noqonaya horumarka iyo taqadamka ay ummadda iyo shacabka reer somaliland ay maanta ku tallaabsadeen ama si ay higsanayaan aad iyo aad baa u mahadsantii isirbaada maaniyo ulahaydadna sharaaf iyo in la'aano inan qaaliya tahay iyo in la'aano inan qaaliya tahay waxaan jecel inaynu nidaamka ilaalino inta buugta iibsanaysa maaha inta kale inay nidaamka ilaaliyaan baan jecelahay waxaan ka xumahay laba wasiiro inoo jooga inuu wakhtigu ka soo gabagaboobay barnaamijkii caawa oo aynu ugu dabaaldegaynay guusha iyo buugga taariikhiga ee ay noo qortay marwo adna aadan ismaaciil intaasuu inoogu xidhan yahay cidda buugga iibsanaysa fadlan buugta xagga hore yaallaan aynu nidaamka ilaalino aad baad mahadsantihiin